arrintaas ee Soomaaliland darahan sida ay ugu muuqato waxay ugu muuqataa runtii shirkaasi inuu yahay shir mug iyo miisaan leh isla markaana wixii midhaha ka soo baxana aynaan waxa weeyaan sugi doono dadkii aynu diranay mas'uuliyiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay taabanaysaa waxay historically arrin taariikheed oo jirtay oo aan sida aan qoraxda ama cadceedda sacabka loo saari karin aan loo saari karin qadiyadda Soomaaliland iyo sida ay ku soo bilaabantay iyo turturooyinkii hore iyo dhibaatooyinkii waaweynaa ee soo maray Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaygu waa Mukhtaar Cali Cabdi maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guul laxaad leh oo la taaban karo midnimada soo hoyay sababtoo ah wuxuu ka sheekay halgankii ummadda Soomaaliland si loo xaqooqay wuxuu xasuusiyay jiilka yar ee aan xoogay ayuu maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan looga baqanayn maanta Muuse Biixi Cabdi maanta wuxuu tusay shacbiga Soomaaliland ee dhalinyarada ah inay Soomaaliland tahay dawlad jirta madax bannaan dastuur leh baarlamaanti leh waa ninka farmaajo madaxweyne sheeganaya waa ninkii cunaqabataynta qabtay waa ninkii awood waayay inuu ciidamadiisa siiyay mushaarka isagoo dawladaha shaqsiinayaan baarlamaankii waa laga caawinaya farmaajo oo lacag la siinay madaxweynaha qaranka ciidamada Soomaaliland iyo meel kasta Soomaaliland dawladda Soomaaliland ma bixisa iyadoo caalam bixinin labadii qof haddii istiidaa way kala tagayaan Soomaaliya waxa noo dhaxeeya dagaal mooyo wax kama jiro madaxweynaha waa hambaleenaya Jabuuti ugu horeyso inay Soomaaliya ku biirto nimanka ay kiilka shanaad inuu farmay soo gooyay Abiy Ahmed ugu horeeyay dhawaa waa ku diray kiilka shanaad Soomaaliland midnimadii ku soo biir diyaar batawna laakiin se Soomaaliland mid tala kaxay dib loo kaxay si ariga yeeli meynada labada farmaajiyo waxaan sheegay baalkii Abiy Ahmed iyo ninka Jabuuti haysta madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay hambaliyo mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaran baatay u arkaan wadaha la qaldan sababtoo ah Soomaaliya kuma garawsanaynay kulaysay kuma garawsanaynay wax ku yeeshay maxaa haday sidoo kale maxaa haday dawladnimadeedana way diidaysaa oo diidantii kuma raaxsana wixii shirarkii hore dhacay wixii lagu heshiiyay ilaa aad fulisaan wax wada hadal inoo yaal marka shirka hadalka madaxweynahana waan taageersanahay ma arkaan wax mid dhalaynay shirkaasi oo ka dhacayo shirka ma qabo natiijo ka soo baxayso kaliya shirka Soomaaliland ba ka faa'iido Soomaaliya faa'iido ugu jirta ma jirto waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan leeyahay say Ingiriiska iyo Mareykanka u kala bixin markaas ay u kala bixin laba dawlad yihiin waa in Soomaaliya Somaliland aqoonsigeega